qof walba oo dunida ku nool waa jecel yahay in qiimihiisa dadnimo noqdo mid sarreeya, muhiim ah, dadkuna jeclaadaan, waxtarna u leh aadamaha iyo inta la noolba. laakiin waxaa weydiimahoodu nagu soo laalaabtay suuragalnimada qof aan is aqoon sida uu heerkan ku tamanin karo. waa mawduuceenna maanta, baro naftaada. inta aanan mawduuca gudaha u gelin, waxaa naga xasuusin ah, haddii ay tahay markii kuugu horraysay ee aad soo booqato janalkeenna, fadlan sabskaraib dheh, gambaleel kala furo, siina sheergaree si uu u gaaro saaxiibo badan ugana faa'iidaystaan. sidoo kale inaad qaybta commentiska noogu reebto wixii talo iyo tusaale ah waxay noo tahay dhiirigelin. mahadsanid. waxaa xaqiiqa inaad tahay qof gaar ah oo ka soocan aadamaha kale ee alla abuuray, waxaana dhab ah inaad leedahay shakhsiyad cid kula wadaagtaahi aanay jirin. sida caadiga ahna waxyaabo badan ayay ku kala soocan yihiin. haddii ay ahaan lahayd habdhaqanka, deegaanka iyo dabeecadahaba. muuqaalkan waxaan si gaar ah kugula wadaagi doonaa heer intee leeg ayaad ka taqaan nafsadaada, dhaqankeeda, mase jirtaa wax naftaadu jeceshahay oo ay qiimayso. ma leedahay hadaf ama yool? calooshaada iyo maskaxdaadu ma isla eg yihiin mise kama warhaysid? waxaana marmarka qaar dhacda in qofku isku taxallujiyo barashada dadka kale isaga oo u arka horumar, waxaana lagama maarmaan ah in aad tahay ruux isagu isyaqaan. intii aad waqti badan gelin lahayd barashada cid kale, wiil ama gabar ka adoontidba aad ahaatide, weligaa ma isweydiisay qof noocee ah ayaad tahay? inta aad muraayad hor istaagtay adiga oo keligaa ah, ma isqiimaysay oo ugu yaraan 10 sekin nafta ma su'aashay xaggaad u socotaa? weligaa nafsadaada ma ka qortay qoraal aad ku ogaanayso halka ay higsanayso? dhammaan su'aalahaasi waa kuwo u baahan jawaab in aad nafsadaada u hesho, ee ma aha mid meel iyo cid kale kaaga imanaysa. waxaase muhiima in aad taqaan cidda aad tahay iyo heerka aad joogto. waa muhiim in aad barato habdhaqankaaga oo aadan ka been sheegin, waayo dad badan oo ku aaminsan ayaad ku weyn kartaa beenta aad ka sheegtay noloshaada. marnaba ha isku qancin adoo qof kale ixtiraamaya in aad aasto ama qariso habnololeedkaaga adigoo isleh yuuna kaa dareemin, ama haddii uu ogaado ama ay ogaato waxbuu kaa sheegayaa, wuxuuna kuu arkayaa qofkaasi mid liita. horaa loo yidhi qofkii sirtiisa la bixin waayo, saaxiibkii ama saaxiibteed ayaa la eegaa. haddaba su'aashan isweydii, wa'ayo ruuxa aan la socdaa? adiga oo eegaya dhaqanka, dabeecadda, diinta iyo muxuu yahay hadafka uu isagu nafsad ahaantiisaba leeyahay. weli ma ku aragtay waxyaabo aadan ka helin oo uu ruuxaasi samaynayo? sideed uga falcelisay mise waad iska aamustay? ka waran haddiiba uu yahay qof aan hadaf lahayn, misena aad iska daba socoto adigoo ku qiimaynaya quruxda, lacagta, reernimada iyo qofkan dadka oo dhan ayaa taageera. sow ku sifoobi maysid mahmaahdii ahayd dameeridhaan raacday? haa ama maya? jawaabtu waa sida aad iskaga dhex aragto. qof walbaahi waxa uu leeyahay dooq uu wax ku jeclaado, go'aankeedana uu leeyahay. haddaba jacaylkaaga makan wax walba oo aad aragto haddana ku cajabgeliya ku saabsan baa, mise waa kan qalbiga ka soo go'ay oo aad muddo ku taamaysay in aad waxaasi maalin uun aragto ama aad hesho? waa muhiim in aad qortaa wax walba oo aad jeceshahay, sidoo kale qor wax walba oo aadan jeclayn. dabadeed isbarbardhig, qiimee keebaa badan. kadib haddii uu waxa aad jeceshahay bato, waxaa kugu soo noqonaysa hal su'aal oo ah, ma haysaa waddadii aad ku heli lahayd? mise waxaad tahay ruux isaga oo soo jeeda riyoonaya? waxaa lagaaga baahan yahay kala doorasho iyo kala horraysiin, adigoo u eegaya keebaa mudnaanta leh. ma jiraan waxyaabo aad jeceshahay laakiin aad ka maarmi karto? samee liis aad ku qorayso 10 waxyaabood oo naftaadu jeceshahay. kadib ka sii dhex dooro 3 ama 4 ugu sii muhiimsan. kadib ka sii xulo midka ugu sii muhiimsan. markaa ku dhaqaaq, ogowna kaas ayaa ah baahidaada koowaad. aadanaha waa u caado in naftiisa ay baahiyo badani ku xiran yihiin. dalabka naftuna waa mid aan dhammaan ilaa aad ka dhimato mooyaane, waana wax aan sida caadiga ah la yaab lahayn. nebigeenna ayaa inoo sheegay, nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee, haddii bini'aadamka la siin lahaa 2 waadi ama tog dahab ah, wuxuu raadin lahaa mid saddexaad.
bini'aadamkana afkiisa waxaa buuxiya ciidda oo keliya. adigoo maanta si fiican u soo qadeeyey in haddana galabtii caloosha ku tiraa waxaad u baahan tahay waxyaabo yaryar oo macmacaan ah, waa wax dhici kara, laakiin jeebka ayaa hadla xilligaa oo kale. hase yeeshee haddii aad farriinta caloosha u hoggaansanto, ogow waxaa isla shaqaynaya caloosha iyo jeebka, halka maskaxdu aynan wax tala ah ku lahayn ama ku yeelanaynin halkaas. haddii aadse farriinta caloosha u gudbiso maskaxda, waxaa kuu soo baxaya in caqligu shaqeeyo, uuna isweydiiyo haddii wax walba oo cunto iyo sharaab ah aad caloosha ku riddo, waxaad wax u tartay caloosha oo keliya. haddiise aad maskaxda u gudbiso, waxaad wax u tartay dhammaan jirkaaga. haddaba ha noqon calooshile ciyaar aanan kala garan baahidiisa asaasiga ah ee ay naftu u baahan tahay iyo waxyaabaha korsocodka ah ee faakahaysiga loo yaqaan. mas-uuliyaddu waa adiga oo leh adkaysi, isla markaana xakamayn kara aragtidaada, falcelintaada, iyo wax walba oo ay naftaadu doonayso ama diidayso. mas-uuliyadda waa adiga oo oggolaan kara wax liita si aad u badbaadiso waxyaabo kale. haddaba ma tahay ruux danta uu doonayo ka hormariyey danta caamka ah? mase tahay qof u dulqaadan kara hadallada meelkadhaca ah ee marmarka qaarkood suuragal tahay in aad la kulanto? ma og tahay waxa keliya ee cid bini'aadam ah oo kula leh aysan jirin in ay tahay codkaaga, maskaxdaada, qisadaada iyo fikraddaada intaba? waxaa jira dad wax walba oo ay sheegaan tusaale ku soo qaata nafsadooda ama reerkooda, weliba iyagoo dadka ay u sheekaynayaan aanay la dhacsanayn. kaaga darane weli ku sii wada. midda kale ee ka sii daran ayaa ah ruuxaasi cidna hadal uma oggola, oo waa ani keliya. ogow inta aad dadka qadariso haba qaldanaadeene ayaa aadna lagu qadarinayaa. nafsadaada aamin, kadib waxaad baranaysaa sida loo noolaado. waxaa jira wax kugu qarsoon oo caqligaaga ka dhex guuxaya, waana fidro allah subxaanahu wa tacaala bini'aadamkiisa ku abuuray. marmarka qaarkood ayaa dookhaaga iyo doorashadaadaba ku diintaa, waxayna ku timaadaa dabeecad wanaaggaaga iyo daacadnimadaada hadba inta ay la eg tahay. laakiin ma heli kartid waxa aad jeceshahay ilaa aad isbarato qofka aad tahay. tusaale, maxaad doonaysaa? maxaase ku farxad geliya? marna laguma guulaysto in aad qof la xisaabtanto adigoon marka hore nafsadaada la soo xisaabtamin. way dhacdaa in qof waxa uu ku doodayo ama wanaag ku raadinayo in uusan isagu ku sifoobin. waad ogaan kartaa dhammaan waxyaabaha adduunka ka jira ama ka dhaca. sidoo kale waad ogaan kartaa waxyaabaha hareerahaaga ka socda, laakiin wax micno ah ma samaynayaan haddiiba adigu aadan ahayn mid naftiisa og. in aad carootaa waa wax dhici kara, siday doontaba ha ku timaadee. laakiin su'aasha ayaa ah, sidee baad u xallinaysaa? ma dagaal ayaad ku falcelinaysaa mise waad aamusaysaa? ma xiriirka ayaad qofka u jaraysaa qalad lagaa galay aawadeed? haddii inta aan sheegay aad isku aragtay ama dabeecadahaas aad leedahay, ogow nafsadaada qayb dhan ayaa ka maqan, waana qaybta samirka. haddaadan aqoon samir iyo dulqaad, dabcan cafisna ma taqaanid. qof aan wax u samrinna wax ma cafiyo. ogow allah subxaanahu wa tacaala isaga oo ku abuuray kuna arsaaqaya habeen iyo maalin, ayaad haddana maalin walba qalad ka gashaa. haddana intaad gacanta u hoorsato dembidhaaf weydiisataa. sidee baad bini'aadam mar ama labo qalad kaa galay ugu samri weyde? waa aniga oo walaalkiin saacid xaaji aadanah oo idin leh ilaahay xaqa hayna waafajiyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.